بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجكي كورميركا وراركا oo aanu maanta idin soo jeedinayno si wada jir ah anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo saaxiibkay Barraayil Kacse xiisad cusub oo ka soo cusboonaatay dagaaladii u dhaxeeyay Soomaalida iyo Cafarta ilka casow barnaamijka intaan kugu soo wareejinin qodob yar oo xogtiisu hadda ay soo gaadhay baan rabaa inaan qodobka canfarta dabcan waa barnaamijkii kormeerka wararka waxaana ka daawanaa daawadayaashu qarjiqood iyo Kismaayo Cable canfarta dabcan waxaan ognahay maalmahan in ay dhibaato ka jirtay oo gaar ahaan xuduudda Soomaalida iyo canfarta dalka Itoobiya dawladda Soomaalida muddooyinkii hore ciidanka New Police-ka laguma aqoonin in talaabo ay qaadaan oo muddooyinkii hadda dabcan dawladda Mustafa hadda ay jirtay dhowr jeer bay canfarta dhibaatooyin sameysay laakiin ciidanka gaarka ee New Police-ka deegaanka ma aysan talaabooyin qaadin hadda laakiin waxaa cusub ciidanka deegaanka inay talaabo qaadeen bal arintaasi hadda iyo dhibaatada halka ay marayso hadii aad noo dulmarto bismillaahir rahmaanir rahiim barrow horta dagaaladan canfarta iyo Soomaalida u dhaxeeya horta deegaanku waa deegaan Itoobiya Soomaalida inta ay qoomiyada la wadaagto waa qoomiyada dagaal ka dhaxeeya aad iyo aad dhulka Soomaalida waa dhul la boobo oo inta badan ay darsiyada Itoobiyaanku ay soo boobaan sidoo doonta baa ahaatee maamulka la yiraahdo Cafarta maamulada ugu tabarta yar ugu miskiinsan ugu jilicsan buu ahaa ee qoomiyadaha Itoobiya aad iyo ugu dhaqaalaha iyo wax soo saarka yar dhul saxaraa ah inta badan iska degan yahay dad iyo ciidan tabar lana ma aynan jirin laakiin intii xukuumadda Tigray ay talada qabatay xogaa waxaad moodeysay inay wada shaqeyn fara badan ay ka dhaxaysay maadaama oo quwad yar ay tahay ay soo barbaarinaysa Tigray marka xuduud bay leeyihiin Tigray iyo canfarta waayo waxay quwadaha u waaweyn la dagaalamaysa Tigray waxay ahayd Axmaarada iyo Oromada qoomiyadaha yar bay marka Tigray barbaarinaysa si ay ugu jabiyaan qoomiyadaha kale maadaama oo bahwadaag ay la noqotay maamulkii Mustafa Axmaarada iyo Oromadii Tigray wuxuu marka abuuray inuu carqalada sameeyo oo uu soo riixo Tigray marka wuxuu ka xanaaqsan yahay ama diidan yahay in Mustafa iyo Axmaarada iyo Oromada ay bahwadaag noqdaan aad iyo aad guud ahaan wuxuu diidan yahay in ay ka noqdaan qayb يعني إثيوبيا مدودة أو حسيلوني كدلته يودي دياي تكرهوا سدان لا صعنبا وحكا هيستا انت تولوين كسوماليدا ay cafartu ka haysatay in la eegbo cafarta ka haysta cafarta dhul ay lahaayeen buu Tigreegu qaatay dhulkii cafartu lahayd ee Tigreegu qaatay waxa loogu magdhabayaa dhulka Soomaalida loogu bedelayaa dhulka Soomaalida hadii cafarta ay Soomaalidu dhulkeedii ka qaadato cafartuna Tigreegu dhulka nagi nasiib ay leedahay aad iyo aad xogaa marka Tigreegu danaha soo kale Tigreegu marka wuxuu yiri wacad ku maray inuu naf iyo maalba ku bixinayo oo si canfarta ay dhulka Soomaalida u qaataan qayb ka mid ah ku dhawaad ilaa 5 tuulo ama 5 deegaan oo aan saddex magacooda ka hayno ilaa Cadaytu Andoofa Garbaciise iyo Allaale afartaas aan magacooda hadda ka xasuusto yay canfartu gacanta ku dhigeen inta markay gacanta ku dhigeen ma aynan ku sii ekaanin intaas yani dhulka dhul Soomaaliyeed degatay laakiin dawladda ka talisay iyo calanka ka taagan iyo mustaqbalka laga gooyo iyo maxaa ku dhahay ciidanka jooga Cafar cafartu marka awood ay ku qabsatay ku soo duushay ma lahayn Tigray ya bartakaray wadanka haystay aad iyo aad Tigray wadanka haystay cafarta markuu ku wareejiyay dhulkii cafartii ma aynan de dhul ay xoog ku qabsatay awal ba ahaydee ma aynan yani de ku nagaanin marka waxa dagaal dhaxmaray iyadii qoomiyadii Soomaalida ay meesha degan aad iyo aad waliba beeshii meesha khaas ahaan deganeed beesha Ciise dagaalkii soo noqnoqday ciidanka cafarta New Police-ka iyo shakhsi yani beel yar oo beelaha Soomaalida kamid ah dhax marayay yaa wuxuu sababay inuu istaag waayo xasuuq fara badan uu dhaco xasuuqii soo noqnoqday oo maalin walba 12 13 7 4 la dilayo Soomaali ah oo waliba xoolo dhaqata ah aad iyo aad oo aad u dulfaysan yaa ciidanka New Police-ku balsi uu wehel ahaan ugu noqdo loo geeyo goobtaas ciidanka New Police-ku meesha jooga la soo weeraray oo la soo gaaday ciidan fara badan baa laga laayay ciidanka soo gaaday markaa ciidankii canfarta iyo Tigray oo isku jira aad iyo aad xisaab markii la xisaabiyay la isku dardaray yani dadku ay soo gudbiyeen yani codad kala duwan meesha aan kugu daray dhibaatada telefoon kama dhaco aad iyo aad anteenada Ethiopia ma oo meel hawo lahayn oo khad lahayn laakiin ruux soo lugeeyay oo buur fuulay oo soo rafaaday
يا هدي وضب هلا عاديات أنت بمرك وحكومنان كرا معلومات كلها هي لكرا أم حكتة ماشي دبعت كجرت يا هذا كوناري أوكي meesha marka 42 nin baa new booliska Soomaalida laga dilay la soo qaaday ku dhawaad 50 baa laga dilay 47 ku dhawaad 30 iyo waxba laga dilay laakiin warka adigu ilaa ugu xoogaalsanaa ka helay waxay ahayd 13 askari oo new booliska Soomaalida oo gaadma ay ku dileen kuwa canfarta iyo Tigreega isu heshanayeen Tigreega iyo canfarta isu heshanayeen gaadma ku dileen tiradaasi waxay aad uga yartahay tirada buubuurinta ee la soo gudbiyay markii hore aadiyad yani saaka ila xoogaal oo la hadalay oo kamid ah maamulka dowladda deegaanka yaa noo sheegay inuu 13 qura ay ahaayeen ciidanka gaadmada lagu laayay aadiyad ciidankii gaadmada lagu laayay markay gacantaas ku dhacday dhamaadii booliski xanuunkii uu wada taabtay Soomaalida maamulka dowladda deegaanku wuxuu siiyay amar ah inay go ahead kala dagaalka oo ay jawaab bixiyaan way ku duuleen isla habeenkii u horeeyayba waxa la qabtay dhammaan tuulooyinkii lagu buransanaa ee dagaalku ka socday aadiyad ee Allaale iyo Garbaciisi tuulooyinkii markii la qabtay dagaalkiina wali wuu socdaa dib ma jireen hadii ay tahay canfarta bas ah oo dagaalku uu yahay canfar bas ah oo yahay dib ma jireen aadiyad laakiin 20 nin oo la qabtay waxa la sheegayaa 20 nin in laga helay rag Tigreeg ah oo new booliska Tigreega ah in laga helay rag wata ID-gi militariga federaalka Ethiopia marka waa dagaal ilaa iyo dhinacyo badan oo dhanka soo jeedaya ay ku lug leeyihiin Soomaalida bas oo dhanka sii jeeda aadiyad waxaan moodaa afarta Tigreegu dambu kale yahay oo uu difaacanaya oo dhul buu ka haystaa hadii dhulka laga qaatana dhulkeedii uu soo noqon aadiyad laakiin sababta aan la garanaynin barra waxay tahay militarigu sababta uu federaalka militarigu uu dagaal ula soo galayo aadiyad afarta laba saadaalin karo run ahaan hadii hawshaasi ay yani dhabowdo oo ay soo shacbaxdo waa arrin Soomaalida waxa ku dhahay dareen gelinaysa in federaalku uu Soomaali aadiyad waxa warbaahinta Ethiopia ay shalay soo qortay in 19 canfar la dilay kuwii ka horeeyay ee Soomaalida ahaa iyo xasuuqi warbaahinta Ethiopia ma qorayn warbaahinta Ethiopia way ka gaabsatay ma qorayn taa lafteedu far baa ku godan aadiyad saaka ee wararka soo baxay waxay sheegayaan iyadana in 17 canfar ay la dilay ay soo yeedhay aadiyad laakiin khasaare inta ka badan yaaba laga filayay meesha oo dagaalo 3 bari socda yaaba ka dhacay oo dhul lagu kala qabsaday sida xogahu ay sheegayaan wali way socotaa xaaladdu wali way cakaran tahay bay leeyihiin xaaladdu way kacsan tahay sidoo kale warbixinaha saakan ka helay xuduudda canfarta iyo deegaanka Soomaalida waxa kamid ahaa 17 kala dilay ma ogay waxay leeyihiin ilaa 30 kale yaa la dhaawacay مسؤول كهذا بالليري وهذا عنفرته ولانتا أمحارة فيو هذا لهذا وحاول شيء بالليري ذات كل دليل إنه كجران هوان يعرور ولينا وحا ما دام أي أذكت هاي إن حك رسمي على جهة لماش أو أي سنجرين إسجارسين حجها سواء لما يصير دعوات ولا وده قدونا دو بهواد الأقلاده وحن رجينا إن سيدا أوها بونلاص أفجر دولة إثيوبيا أو دولة فدرال كها إن أرنتاسي أي وحوي جعان كجيستو أو عيدا مدن دتك Soomaalida laynaya iskarabsanaya Tigreega iyo canfarta ah ay joojiyaan dhul balaarsiga iyo dulmiga ay wadaan baan rajaynaynaa deegaanka Soomaalida mas'uuliyiintiisa iyo cali ciidankiisa iyagana in talaabada ku haboon arrintaas ka qaadan doonaan hadii aan aad iyo aad baad maasan tahay halkaas aan canfartii ku soo koobaynaa canfarta dagaalkooda iyo Soomaalidu ugu socda aad iyo aad waa socda hadda marka dhigta u taagna ilaaha macnaha dadka aan la xiriirnay oo deegaanka wali waxay sheegayaan in xaaladdu ay socoto laakiin isgaarsiinta oo deegaankaasi aan ka jirin awgeed wali macluumaadka rasmiga ah in la helo ay adag tahay ayaa muhiim waxa kale oo naga go'an anagoo eegayna kolba miisaaniyada sida ay habeenii maalin ilaalinayeen marka waxaan oran karnaa xukuumadda inay ka go'an tahay inay tayeyso oo ay u tarto ciidanka ammaanka ee nabadda ilaalinaya waxaa tusaale u ah in 10 sannadood mushaar kor aan la samaynin ciidanka gaarka loo sameeyey taas oo aan ahayn mid halkaa ku istaagaysay sanad walba wixii koro wixii u korri jiray caadiga yaqaanay ay heli doonaan iyagana waxaan kula dardaarmaynaa inay ogaadaan shacabka ay la joogaan shacabkoodu yahay inay u naxariistaan inay xuquuq insaanka ilaaliyaan
inay ka dadaalaan intay karayaan inaan wax tacadi iyo wax dhibaatay uuna ka dhicin inkasta oo marka laga hadlo sanadkii u dambeeyey hadda ay iyagu ahaayeen kuwa dulman ee dhibaatooyin soo gaarayeen oo meelo badan oo ka mid ah deegaanka shacabku iyaga gacanta uga tegayeen taana ay dulqaad ballaaran ay ka muujiyeen kuna wanaagsan yihiin laakiin inay mar walba ogaadaan waxay u adeegayaan inuu yahay shacabkooda una naxariistaan dhaqannada askarta lagu yaqaano askariga caadiga ee akhlaaqda iyo disibliinka ay ku ka tahayna inay la yimaadaan ayaan kula dadaalamayna madaxweynaha ayaa khudbaddii siiyey xafladdan maruu ka hadlayey isbeddelkii dhowaan deegaanka ka dhacay ayaa waxa uu yidhi intaa haddii aan kaga tago arrimaha ku saabsan xafladda maanta halkan aan joogno waxaan jecelahay inaan uga faa'iidaysto mashraxan iyo munaasabadda maanta halkan aan joogno inaan wax yar ka idhaahdo isbeddelka deegaanka ka dhacay iyo faa'iidooyinka uu soo kordhiyey sidaa la socotaan marka la soo koobo bulshadu ama ummadii waxay u baahan tahay saddex shay waxaa weeye marka ugu horeysa inay nabadgelyo hesho haddaan nabadgelyo jirin haba yara soo kordhay oo wanaagsan oo dadkeena ka soo kordhay waxaan aaminsanahay in shacabkii nasteen oo meel walba si xora ay u socdaan naftooda u baqayn maalkooda ayna u baqayn oo ay yihiin kuwa maanta guryahooda si nabadgelyaa ku seexda kuna soo toosa waxaa kaloo bulshadu u baahan tahay ama ummaddu u baahan tahay oo kalabaada xorriyad bay u baahan tahay waxaan aaminsanahay in xorriyaddii dadkii haystaan walow sidii loo isticmaali lahaa weli aad moodo inay wax ka khaldan yihiin haddana waa bilow bulsho kasta oo maanta ku faanaysa inay haysato xorriyatu qawl waxay ku qaadatay 200 sano inay gaadhaan meelahay gaadhsan yihiin inay fahmaan waxa khaladka ee in la yidhaah oo ayna xorriyad ahayn iyo waxa kale marka taana waqtigeeda qaadan doontaa waxaa laga yaabaa nabadnimada naga dambeeya annagu inay ka faa'iidaan laakiin annagu aan ku rafaadno maadaama annagu aan hormoodkiinahay oo arrintaan bilownay marka aad iyo aad baa arrintaan aan ugu faraxsannahay sida ay deegaankeena tahay in wixii dowladda ayagaya ay si toosa ilaa cabsi u hadlaan siday rabaan ay dhibaatooyinshooda u sheegaan waxaa lagu dagaalamayaa qoryo uun ahayna afka uu yahay miidiyaga laga hadlayo waa waxyaalo soo kordhay ma aha arrintaasi arrin aynu haysanay sanado dhowaa dadka badankiisu wax xabsiyada ugu jira wuxuu ahaa dowladdaad xamatay buu ahaa kor baad hadashay ma ahayn hoos baad hadashay hebel baad xalalkoodiisa u furtay hebel baad shaalla cabtay waxaasaa dadku keenaa laakiin maanta si toosa loo hadlayaa maqaaxyaha laga fadhiyaa telefishinada laga fadhiyaa facebooka laga fadhiyaa qaar baa xitaa weliba xadgudub samaynaya oo laakiin haddana nabadgelyadoodii iyo xorriyadoodii aan habeeratee waxba loo geysan waa arrin soo kordhay baan qabnaa waxaa kaloo biniaadamku ku baahan yahay nolol buu ku baahan yahay noloshaasi waxa weeye shaq u baahan yahay horumar buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay wuxuu cun u baahan yahay wuxuu dhaqdo u baahan yahay arrimahaasoo kale ma aha waxyaabo 6 bilood ama sanad haba yaraatee natiijo laga gaari karo iyo diilada iyo jihada loo dhaqaaqay baa la isweydiin karaa laakiin protest politicsiga la yidhaahdo muxuu ahaayey dhawaaqa ee maalin walba degmo hebel biyolaan baa ka jirta waddadaas way go-an tahay halka iyo halkaa labaatan gudub baa bilaa shaqaa waxaasoo kale wax ku xalismaya ma aha iska daa innaga oo dagaalo ku jirnay oo daageenkeenu ka mid yahay dal fiqiira oo weliba kusii fiqirsan yahay iska daaye dhammaan dunida soo koraysa iyo afrika oo dhan iyo weliba waddamada dhaqaalahooda dhexdhexaadka yahay shaqa la'aan ballaadhan gaajo ballaadhan dhibaato ballaadhan ayaa ka jirta marka runta laysu sheego ma aha wax sanad iyo laba laga gudbayo waa wax u baahan halgan dheer in la galo dowlad keliya in lagu hadlayana aan ahayn dhaqanka bulshadeena la bedelo dadku inay shaqaystaan dadku inay aroortii kacaan in ay ka baxaan inay wax ka sugaan uun kacan kale hawlahaasoo dhan bay u baahan tahay dhaqan isbedela shaqo loo dhaqaaqo dhaqaalahoo oo la beeqaamiyo tuugnimada iyo musuqoo la yareeyo bulshada oo si fiican wixii dowladda ay soo gaarsiiyo yaa lagaga bixi karaa waxaan aad iyo aad u aaminsanahay isbeddel ballaaran in dhinacaana laga sameeyey waxaa ka maqaatiya keliya mashaariicda sanadkan la qabtay mujaahidoodii ama ha la fuliyo ama hadda dhexdaa lagaga jiro laakiin
saddex isbitaal lama dhisin iyo shantii sano u dambeysay saddex isbitaal baa hadda socda goormay bilaabayaan maxaa loo bilaabi waayey waa hawlo kale qaar baa bilowday qaar baan bilaabay system dhan oo burburay oo institutions oo in la dhiso u baahan oo akhlaaqiyaad inteen way adag tahay in la yidhaha wax waliba boqolkiiba boqol buu soo baxay iska daa deegaankeena dalka Ethiopia ka tirsannahay ee boqolaalka sanood iyo kumanaanka sano ku faanaya inuu ahaa nidaam dawli yahay kala yaa sanadkan jahwareerka bay gelisay isbedel dhacay aan ognahay marka in si waaqiciya loo fikiro waa muhiim waa arrintan laga hadlo madaxweynaha ayaa sidoo kale intuu khudbadiisa ku guda jiray wuxuu ka hadlay mashaariicaha horumarineed ee deegaanka laga fuliyey intii isbeddelku dhacay waxaa la dhisayaa oo socda magaalooyinka Jigjiga iyo Goday laamiyo 10 kilomitir gaaraya waa lacag aad u fara badan waxaa socda oo la dhisayaa ilaa iyo 50 iskuul oo dugsiyada sare oo ayna ku jirin dugsiyada hoose ee degmooyinka ka socda oo cid walba ay ka badbaadkacayso tayadooda xilliga la bilaabay dhammaadkoodu goldolooyin la ka jira laakiin miisaaniyadii waa loo qabtay waa la geliyey waxaa mushaharkii loo kordhiyey ama habeenbixii ay lahaan jireen weligood aan helin shaqaalaha caafimaadka waxa la yidhaahdo duty per hour waxaa la soo kordhiyey ciidamo ilaa iyo 2,500 ka badan bilays fara badan waxaasoo dhan miisaaniyadii deegaanka u qorshaysteen ayaa gelisiiyey sida huwaada meelaha kuwa la socda miisaaniyadii xaggay martay waxay martay mushaharka dadka halka maanta taagan sideedka biyaha noloshaas maanta la haysto ayay martay waxaan muhiim mar walba inaan isweydiino kolka isbeddelka la dhaliilayo ama laga hadlayo waayo cidda dhaliilaysa ma cid laga filayay iyo dhaliishaa mise waa cid aan laga filayn adduunka oo dhan waa la yaqaanaa ciddii faa'iido ku qabtay nidaamkii hore uma cuntamayso isbeddelka maanta jira tawreed iyo injiil haddii la aqriyo lagama dhaadhicin karo waxba hagaagay lagama dhaadhicin karo goldolooyin iyo kolba wax meel laga sheego laga waayo dadka maanta hadlaya marka badankoodu uma baahna in intixraac dheer loo sameeyo taariikhdooda marka jahwareerinta noocaasana waa mid dawladdu ay kaga jawaabi doonto inay soo bandhigto waxtar muuqda oo aan la qarin karin haba yaraatee maaha mid keliya oo hadalka lagu jawaabo ku dhammaan karta maaha waxaa markaa loo baahan yahay bulshadu inay si ballaaran u fikirto oo ayna noqonin kuwo ay ku awrkacsadaan dadyow wata ajendayaal siyaasadeed siyaasiyiin fashilmay kuwo u eg awrkiraalayaala oo saacadda aan taagannahay kooxihii fashilmay ee dadka xansuuqay weli rajo ka qaba sii daba taagan weli kuwa kasii daba taagan oo waqooyiga Ethiopia u duulaya sidii iyagoo nidaamkii sharciga soo noqonayo waxa ay lagu goomaa ma soo noqonayaan dib u noqonaya deegaanka kuma maamulayaan haba yaraatee ugu dambayntii xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashooyinka dhabta ah ee shacabka wayna jiraan cabashooyin ballaaran baa jira dhinaca maamul wadaagga dhinaca ilaalinta nidaamka iyo sharciga dhinaca maaragtay saacadaha shaqada dhinaca sida maaragtay loo maamulayo dhaqaalaha heerar kala duwan ilaa cabashooyin baa jira manaha kuwo hal mar dhammaanaya laakiin kuwaas waxay dhammaan doonaan marka la abuuro system ama nidaam gedigii waxaa lagu macneeyaa 3 shay ka kooban yahay ka koowaad waxaa weeye waa in dadkii shaqada qaban lahaa ee saxda ahaa la gaadiyo muddo 6 bilood ee sanadka xukuumaddu waxay ku hawlaneyd in la soo xormariyo aqoon-yahan ugu yaraan heer degmo ilaa heer kilil maanta waxaa ka shaqeeya dad shahaadooyin haysta oo aqoon leh hebel baa nin ubaa dharbaaxay iyo hebel baa hadal soo xantay iyo shaqada soo siiyo dad aqoon-yahana oo waxbartay oo akhlaaq bulshada ku taqaano ayaa meel walba joogaa la odhan karaa aqlaliyadda kuwa xumaadaa jiri kara kuwa khaldan baa jiri kara kuwa dadka qowmkeeda jiri kara laakiin guud ahaan waxa maanta lagu hulayaa waxa weeye aqoon ma leedahay shacabka iyo bulshadana ma kuu taqaanaa inaad tahay qof akhlaaq leh waxaa taasoo raacaya in la dhiso shuruucdii oo la burburiyey shuruucdaasna waxay qaadanayaan waqti iyo dadaal dheeraada in loo galo waxaa soo hadhay dhaqanka siyaasadeed ee bulshada iyo bedelo dhaqankaas
oo isaga laftigiisu u baahan waqti marka waxaan bulshamaantiin leenahay waxaan aaminsanahay isbeddelkii sanadkan iyo waxyaalaha fara badan laga faa'iiday wixii dhimanna xukuumaddu ay diyaar u tahay inay saxdo shacabkan waxaan ku boorinayaa inay garab istaagaan ciidamadan maanta halka ka qalin jebinaya in la ogaado in nabadgelyadu kulligeen ay dan inoo tahay haddii aan la ixtiraamin ciidamadana habeeraatee aan waxba soconin